QuickBooks Training. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين كلنا توعنا وناكس. halkan nagala socotaan wasatiya production 1 fadlan ku soo dhawow subscribe uda qarmin noqon macaamiisha ku tahan waxaanu maanta baran doonaa sida QuickBooks enterprise solution lagu shubo computerkaaga markaa si aan ugu shubno waxaan tegnaa programka waynu haysanaa marka hore programka laftirkiisa ayaa double click siinaysaa double click marka uu siiso waxa ku soo bixi doona inuu ku dhaahdo install garanaysa ama daaqad ayaa kaaga soo bixi doonta hortaada daaqadaas ayaa aqbali doonta markaasi tan markuu daaqada kugu soo baxday ku tahay do you want to allow this application to make changes to your device yes ayaad ka dooranaysaa yes marka doorato waxa ku soo bixi doonta QuickBooks versionkiisii QuickBooks Enterprise Solution 2015 ayaa halka kaga muuqata ama 15 version. Welcome to install for QuickBooks Enterprise Solution 15 version kan kusoo dhawow markaa next ayaad oranaysaa next marka tiraahdeed waxaad arkaysaa in halkan ay markaasi socoto installationka uu ku bilaamay uu leeyahay reading contacts for the package marka waxa toos ugu socda oo computerka kugu shumaya QuickBooks Enterprise Solution intu ku shumayo waan sugaynaa markaasi waan eegi doonaa steepada ku xiga ee markaasi la mari doono sida tamarku kugu soo saaro halka uu marayo welcome to QuickBooks ku dhaahdo waxa sameynaysaa inaad taahdo wuxuu ku yiri close any markaasi please close any open program especially first protection program before continue marka continue anaga programada soo naga xidhin ka virus iyo wax walba way xidhin continue ayaad oranaysaa continue marka tiraahid wuxuu ku soo saari doonaa listen agreement deetana halka hoose ku qoran tahay daaqada banaan ay ku furan tahay tigta saaraysaa meesha wax ku qoran I accept the terms of the listen agreement next ayaad oranaysaa next marka tiraahid waxa ku soo bixi doontaa inuu sida tan kugu soo saaro hadana ku dhahdo custom and network option doorashada iyo qaabaynta markaasi qaabka markaas ugu shubayso I will be using QuickBooks on the computer on this computer kan ayaa currently syntax computer kan ayaa si toos ah ugu isticmaalaya ayay ka dhigan tahay ta ku xigta waxa weeyaan I will be using QuickBooks on this computer and I will be storing our company file here it can be shared over our network waayahay computer kan ayaa ku isticmaalaya laakiin waxa la share gareynaya un bay ka dhigan tahay in our network gudaha ina markaas aan markaas network aan ku wadaagno ugu muhiimsan ka sare inaad markaas aqoonsatay computer kan ayaan ku isticmaalaya sida tan marka ugu isticmaasho waxaad furi doontaa halkan ayaa waxaad gelin doontaa liisanka ayaad bartan gelin doontaa daaqadana ku qorta liisan number liisan numberka marka ay haysatid ayaad gelin doontaa liisan markuu leeyahay waa product number nan lahada product numberkina halkan ayaad gelinaysaa next ayaad oranaysaa next marka tiraahdi sida aad u gashid wuxuu ku oran doonaa change the change install location meesha dhigayso miyaad bedelaysaa mise location kaas aad u deynaysaa mise waad bedelaysaa halkaas ku dhufanaysaa meesha computerkaaga markaasi aad doonayso inaad dhigto ayaad markaasi dooranaysaa oo meeshan ayaad dooranaysaa sida dhiida programka meeshaas marka halka marka anaga loo dooran ayaan u deynaynaa waxaan oranaynaa okay baan oranaynaa next ayaan oranaynaa next marka tahay wuxuu ku leeyahay ready wuxuu diyaar u yahay to install inuu ku shumo computerkii markaas ayaad oranaysaa install halkan hoose ku qoran tahay install marka tirahdid waxa toos u bilaamaya in programkaasi si toosa ugu shumo markaasi computerka markaasi weyn sugaynaa stepska u marayo iyo sida ugu shumayo sida hortaada ka muuqata hadda waxa ku socda inuu yiri our biggest product improvement this year come from you the customer marka hadda stepski iyo qaabki halkan kasta loo customer transaction ki waxyaabo sameeyo dhan ayuu ku sharaxaya kolba page ku gudbayo markaas waan sugaynaa
inta uu markaasi installing QuickBook 2015 Enterprise-ku oo dhamaanayo. marka kolba stepskana waan la socon doonaa sidan hore u la soconay stepskii ka horeeyay kan. sida tan markuu soo baxo ku yiraahdo congratulation waa marka uu soo gabagabeeyo waxa loo yaqaano markuu soo gabagabeeyo installation-ka. congratulation markuu ku yiraahdo waxa sameynaysa bartaas iyadoo soo open click marka siiso waxa ku soo furmi doona QuickBook ayaa toos kugu soo furmi doona. dabeetana wuxuu soo kici doonaa sida tan markuu kugu soo kaco waxaad sameynaysaa si aad markaasi u karagarayso. waxaad tagaysaa halkan ku qoran tahay report adigoo iska xidhaya daaqadan. dabeetana waxaad tagaysaa halkan ku qoran tahay help markay tagtid halkan oo ku qornaan doonto waxa loo yaqaan registration ayaad click si doontaa. dabeetana code-kana waynu arki doonaa sida code-ka loo gelinayo. bartaada registration kashid marka ku dhufatid waxa soo bixi doona waxa loo yaqaano registration marka click sidna validation code-ka waxa la yiraahdaa ayaad gelin doontaa. toos ayaan arki doonaa. dabeetana company-ga ayaad sidaas ku sameyn doontaa. sida shirkadda loo abuurana insha Allah casharka ku xiga ayaan ku sameyn doonaa. kan mar hore ayaan isaga ku shubnay. deetana Windows-ku ma ilaawayo mar walba company-ga hore ee markaasi lagu sameeyay ilaa meesha laga saaro oo laga format gareeyo. code-kana ma ilaawayo code-ka registration loo yaqaano registration-ka ilaa iyo computer-ka Windows-ka la format gareeyo. marka qaabka uu soo bixi waayay imka taawayaan oo active ayuu noqday. hore ayaan markaas u code gareynay. marka mid aan ahayn 2015 ayaa insha Allah ku sameyn doonaa casharkeeni si loo soo markaas loogu shubo computer-kana halkaas uu joogaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaah.